xeerkani dastuurka qaranka iyo shariicada islaamka buu ka hor imanayaa haddaan dhowr tusaale soo qaato dastuurkeenu wuxuu cadeeyay hay'adaha sharci ee baarista leh buu cadeeyay halkan waxa ku qoran baadi koob baa xeerkan ku qoran waxa sheegi doona hay'ad buu halkan sameeyay xeerkan hay'ad aan dastuurkeenana ku jirin dalkana ku jirin xeerkeenana ku jirin ayuu cadeeyay hay'adaas cid ay noqon doonto garan mayno inuu ninkii yaraaya cadaanka ahaa birigidhoodii noo yimid hay'adda mas'uul ka noqon doono in cid kale laga dhigi doono lama garanayo waxyaabaha kale ee uu xeerkani khaladaadkii diinteena ka hor imanaya waxa kamid ah wuxuu leeyahay qodobka 35aad hadaan u tago xaaladaha fudeeya ciqaabta qofku hadduu kufsi galo oo qof daa yahay waa loo fududeynayaa bay leeyihiin qofku hadduu 15 jir ilaa 18 jir daada u dhaxaysa yahay oo kufsi sameeyana waa loo fududeynaya haddaba qofka inta badan dadka kufsiga sameeya waxay u badan yihiin 15 jir ilaa 18 jir ilaa 20 jir bay u badan yihiin marka iyagii ciqaabtii laga fududeeyo miyaan la dhiiri gelinayn iyagii baa lagu dhiiri gelinaya inay kufsiga sameeyaan marka waxa kale oo iyadana halkan ku jirta qofku hadduu sakhraansan yahay waa loo fududeynayaa kiiska waxyaabaha halkan ku jira waxa kamid ah qodobka afraad farqadiisa B iyo T waxay si cad u sheegayaan sinadii in la fasaxay ayuu si cad u sheegay waxay ku leeyihiin qofka oo isticmaala xoog qasab ama hanjabaad kula kaca galma aan sharci ahayn qof kale oo aan ogolayn raalina ka ahayn hadduu ogoliyo ka warrama duu qofkaasi ogoliyo in sinada laba qof oo is ogol haday sameeyaan ka warrama sinadii meel alla meelu halkan ma garanaysaa wuxuu xeerku wuxuu tilmaamayaa inuu fasaxay sinadii aad iyo aad baan uga xunnahay waanu cambaaraynaynaa waxa kaloo shacbiga Soomaaliland u sheegaya qoyska meesha kaliya inoo fayoobeed waxay waa qoyskii buu xitaa dhex galay guurkii buu dhex galay waxaan loo baahnayn baahi bahalkan aynu qabnaana ma jiro ilaahay subxaanahu wa ta'aala xad buu sameeyay sinada xad kaas ay nagu filan sabab aynu ugu baahanay kanay ma jirto waxa Puntland ay garan weyday Puntland waxay iska garatay ee Soomaaliya burburkaasi ka jira iska gartay ayaa maanta aniga halkan leeyno soo dhex galiyo leeyno dhex quusinay marka waxaan leeyahay culimada Soomaaliland iyo madaxweynaha qaranka iyo waxaan leeyahay arinta laga noqdo xeerka la inaga laalo